kuwa axmediya la dhahaan waxay subaxi wax la yiraahdo tasbiix ay akhriyaan mid marka tasbiixda akhriya aan waxa inuu yiri tasbiixdu waa baadil bal u fiirsa asaga naftiisa suu u dhiirinayo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tasbiix eraga uu dhahayaa horta aafab ahba tasbiixdu waa baadilan ku iriyo akhriyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ninkaas wuxuu yiri tasbiixdu waa baadil tasbiixdu waa baadil inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un saasuli u fiirsada marka laba qodob aan rabaa marka qof kasta bal maqdaca midka aan duubayo yaan la dhegaysan midka asagu duubay waxay sameeyeen raggii saaxiibadiisa kaygii dul saaray xaqa ilaahay inuu weli u yahay kelimadeydii intii ugu muhiimsaneed ma aysan jarin hadalkii aan iriya ku yeelay meesha ilaahay baa ka ilaaliyey beentiisiina ma jarin tasbiixdu waa baadil ma jarin sidii u daayey qof kastaaba maqdaca ayagu midkay faafiyeen ha dhegayso mid kale yaa la dhegaysa midka ayagu faafiyeen ha la dhegayso markaasaan la hadlaan niyahu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa tasbiixsan jiray tasbiixna waa xaq laakiin qaabkan ma ahayne ma ilaahay ka cabsan iska day mid marka tasbiixda akhriya aan waxa inuu yiri tasbiixdu waa baadil markaasaan la hadlaan niyahu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa tasbiixsan jiray tasbiixna waa xaq laakiin qaabkan ma ahayne ma ilaahay ka cabsan iska day haddii ay ku jirto inaan anugu iri tasbiixdu waa baadil tasbiixdu waa baadil qof tasbiixda baadil ku sheegaya diin ma laga qaadan karo maya wax ta'wiilan la ii samayn ma weli haddaanan dhihin aan iri tasbiixdu waa xaq sidii nabigu u tasbiixsan jiray u tasbiixso oo been cad uu ku hadlaa qofkaas ma la dhihi kara diina laga qaadan kuwa axmediya la dhahaan waxay akhriyaan subaxi wax la yiraahdo tasbiix ay akhriyaan mid marka tasbiixda akhriya aan waxa inuu yiri tasbiixdu waa baadil bal u fiirsa asaga naftiisa suu u dhiirinayo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tasbiix eraga uu dhahayaa horta aafab ahba dadka og in su'aalo ka dambeeyo qabri ka dambeeyo ha dhagaysto qofka beenaalaha iyo qofka runta sheega ha kala ogaadeen markay kala ogaadaan amarka ilaahay ha la qaato yaa ayuha alladheena aamanu taqullah wa kunu ma'a saadiqiin mu'miniina rabbika baqa dadka runta sheegaya garab istaaga maalinaan meel tuula waxaan ugu imid wiil laashin oo subaxdii axmediyadu waxay akhriyaan xadra yaroo la yidhahdo tasbiix lagu magacaabo subaxdii la akhriya asagaa markaa ka laashin oo qaadi ay yidha midka dhawaaqo wey farta dhegta geliy isagaa ka dhawaaqa nin aad macaan wey markaasaan la hadlaan niyahu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa tasbiixsan jiray tasbiixna waa xaq laakiin qaabkan ma ahayne ma ilaahay ka cabsan iska day oo sidii nabiga yeeshay wuxuu yiri subhanallahi wa bihamdihi ya sheekh ilaahay ugu cadaaba meesha anigu subhanallahi wa bihamdihi aan ku hayaa maya waxaan ku iri subhana allahi wa bihamdihi ma hanartita nabiga ma isruuxidaan alla kugu cadaaba taqyiirka aad ku sameeyay xadiiska nabiga alla kugu cadaaba subhanallahi wa bihamdihi waa midan kugu yeerayo waa ila fahmi waay markaasaan wax yar isu haddaad salaad hadeer mid qaadiriya marka jooga meesha agteedo kutuba u akhriyo waxaan ninkan qaadiriga hadduu salaad xirto ma ku xiranay markaasuu ha asagu ma kugu xirana ha nin maraykan muslim adduunya ma ku xirana ha mid carabana waa nagu xirana idinkuna anaguna ku xiranay waxaan idhi adiga subaxdii markaad tasbiixda waxaad ku magacaado akhriydo sheekan qaadiriyood kitaabka ka akhrisataan ma kula gala kaasuu maya ila gelina waxaan idhi asagu markuu bilaabo ayagu tawasul yiraahdo subaxdii mid ay akhriyaan allah ilaahul khalqi ya allah ya man yara wala yura illa huwa oo hadda kaligeed muxaadaro u baahan ya man yara wala yura illa huwa way ogaada وكلمات قطر وكلمة وعلى الملقلي سوير لقلنا أهدان بكون عين مركز عنيري إيشك مرك صلاة دي وإسلام تكتين عرب يعجمي المحال دي إلا إسلام حطريو
waxaa diiday yidhi tixdaan annaga axmediye mawlaana cabdiraxmaana noo jideey ayagana maqan hadda qaadirada mid kale u jideey laakiin salaada nabiga la yimid markaasaan haddaad waddadii garata rabbi ka cabso diinullaahi a ummadda isku keeni kara waxa kalena waa dad waxay samaysteen wallaahi waa rumi u malay maa maalintaba inuu xadriyey ilaahay hadda nololan ku oga wuxuu rabaa caqli xumaa uu dad jahli u hayo uu ku siray inuu dad kale ku siruu rabaa markaasuu wuxuu yidhi nimanka oo qaadiriyada subaxi waxay akhriyaanuu yidhi wax la dhaho tawasul kuwada axmediya la dhahaan waxay akhriyaan subaxi wax la yidhaahdo tasbiix ay akhriyaanuu yidhi mid marka tasbiixda akhriya aan waxaa inuu yidhi tasbiixdu waa baadil bal u fiirsa asaga naftiisa suu u dhiirinayo subxaan allahi wabixamdi subxaan allah alcadiim tasbiix eraga uu dhahayaaba horta aafaaba ahba tasbiixdu waa baadilan ku iruyo aad akhriydo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun tasbiixdaad wadahay baadil waayan iru yidhi marka asaga dhahay ogow markaasu wuxuu yidhi ninkii oo uu warka u sheegay wuxuu dhuhuu yidhi subxaan allahi wabixamdi subxaan allahi alcadiim baadil maaha oo nebi maxamed ka soo gaarin u dhuhuu yidhi markaasa waxaa inuu yidhi subxaan allahi wabixamdi subxaan allahi alcadiim baadil maaha oo nebi maxamed ka soo gaarnay taas anaaba kugu yeeraaye qaabka aad u dhahaydaa khaldan weyda haddana warkii waa bedelay muujeeda qaabka aad u dhahaydo aa khaldan ood ilaahay kugu cadaabaya ana iru yidhi markaasuu yidhi beentaa waay haddayba tasbiixdu sugan tahay saa ilahay maartay qaabka dhahay ku diidaa markaasa waxaa iru yidhi anaa kuu sheegay hadda fiirso wuxuu yidhi subaxi tasbiix ma akhridaa xamdiyatiyan haa qaadiriyan maxay akhrisaa tawasulka adugu ma la akhridaahan iru yidhi markaasuu yidhi maya ayagu ma kula akhriyaan tasbiixda maya haddayna baadilta taasa u daliilu waxay saxaabada soo akhri weydeen marka ninkii marka waa nin iska caamo ah adna run inuu sheegay inuu been sheega inuu kalama aqaano laakiin wuxuu yidhi weli maantaas wuxuu markaan saas u fahamsiiyey aa ugu dambeeyay horta tasbiix hadda mu akhriyo waa ka guulaysto laakiin hadalkiisa haddii si loo fiirsho yaa macnaha inaan tawasulka aanan wax ka akhrin ama aanan tasbiixda wax ka akhrin baadil maku noqon saas yaa مثلا كسو قاد قرآنكم يغلق كسو دقي عقلك فير ماشي وصعد قرآنكم يغلق كسو دقي تدبقروا سوما انت معناها ما يعني ليه تدبقر تبنكر انت متواتر كا انت متواتر كا تبنكر تبنكر اسقرا waxa kamida qiraa'ada ahlus sunnah wal jamaa u badan yihiin qiraa'atu amr waabi ma akhrisa ya ma akhriyan ما أخري ولي وحي حوق ساران سي لو بابئن لهاي ما أركيسا إنا يسنو نمان كان آخرين بادل بيكون نغير مركا قراداس يا بادل ما يكون نغير كون نغير مايس كاسواتك وحاجرتو كتباء الدون كان لغا أخري أو حقه وأنك مقرر هذا النوع هين ما بادل أساس كون نغير أيام يا macna waxa adu aad markaas ka gaari weydo oo aad sameynta aad sameyn may baadil ku noqonayaan aqliga marka ninkaas uu keena fiir waa wax martay ibarkiisa ah waay laakiin hadduu adiga oo jaahil oo cilmi la'aan uu ku helo waa ka dhaadhici karaya intaas marka cilmiga barashadiisa fadliga uu leeyahay tusanaysa midaas cilmiga inaad aad ugu dadaashaa la rabaa qof walba waxaan codsi uga ah maqdaca midkay ayagu duubeen in la dhigeysto run iyo been waa in la kala garto xaqa iyo baadilka la kala garto markaad ogaato dad waxa jira iyagu waxa weeyaan waa iska taageere mar walba fikirkan uu asagu rabo qofka difaacaya run sheegay oo waxa la sheegaa hadda ka hor laba nin murmeen yaa waxaas waa ri anzu markaasuu warri maahane waa shimbir كاسور واد عنزي سوري مكان أنا دوان مركز كوسي دوي هنا هاد واحد كاسور تم قوة عطا إني شمبرتا مركز سوري عنز ولا مطار أنا جوا يجري أضيع ربط بها هادي تتصع سهجي أو أيجا واحد كاستوعب عن حق الرعي لكن قفك أصابه إنها استراحة أو دجاها استراحة أو قلبك استراحة قبري السبي سجع كشان لايه لكن ضدك أب إن سؤال قدم بيض
qabri ka dambeeyo ha dhegaysto qofka beenaalaha iyo qofka runta sheega ha kala ogaadeen markay kala ogaadaan amarka ilaahay ha la qaato yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullah wa kunuu maca saadiqiin mu'miniina rabbi ka baqa dadka runta sheegaya garab istaaga